toddobaadka dambe waxay sanad ku buuxdaa markii dowladda Soomaaliya ay dowladda Itoobiya u gacan gelisay sarkaal ka tirsanaa ururka ONLF oo magaciisu yahay Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax. dhiibistaasina waxa ay dowladda Soomaaliya ku abuurtay qalalaasihii siyaasadeed ee ugu weynaa sanadkaasi tan iyo markii ay xukunka la wareegeen. isbedelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay in ugu dambeyn xabsiga laga sii daayo Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, iyadoo oo dowladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka ONLF. hase ahaatee sida ay ogaatay idaacadda VOA, Cabdikariim Qalbi Dhagax waxaa kale oo uu ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ONLF oo bartilmaameed u ahaa shirqool dil ah sida ay muujinayaan diiwaanada maxkamadda Soomaaliya. waxa ay warbixintaasi inoo haya barnaamijkii galka baadhista oo soo diyaariyey Haruun Macruuf. labiyo labaatankii bishii Juun sanadkii 2017 Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed oo 31 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad milatari oo ku taala magaalada Muqdisho, waxaana lagu xukumay 20 sano oo xariga. dembiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. waa tan hore inuu wax u basaasay waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal liddi ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. waxaa kaloo lagu helay dembiyada kale ah isku day dil iyo horkicid dembi, isagoo abaabulo in la dilo 3 shakhsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqoolkan bilaabay bishii Maarso 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadayntaasi. 2 bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeya ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya. 4 nin baa waxay ii timid baabuur bay igu riday, soolad iyo 2 qori baa la igu qabtay. raggaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii, kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. waxayna dharkii u keeneen Cabdikariim Makhtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay, waxaana ay weydiisteen lacagtii uu u ballan qaaday oo ahayd $15,000. waxaa kaloo ay ka codsadeen inuu la hadal siiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariim Maxamuud Axmed Makhtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey. markii aniga insaas ahaa sawirkii laga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey. waxaa la yidhi waan ku iibsanay $15,000 baan ku siisay. $15,000. $15,000. hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayey laamaha amniga ee Soomaaliya. halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii caddaymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay samaynayeen. waxaa Cabdikariim Maxamuud Makhtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya, ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka caddaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa. maxkamaddu waxay kaloo ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya, gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayay waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF, waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goordhowaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Sooc iyo qofka saddexaad oo ahaa Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo dayntiisa dhowaan kadib uu waraysi khaas ah oo siiyey barnaamijka galka baarista uu kaga hadlay dhacdadaasi, waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo ka soo gaarayay Itoobiya. Itoobiya iyo qolyo iskaashanaya dabadaba socda waa nala dhihi jiray. digniintaasi noocee bay ahayd? ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? maxay ahayd? ma laydin sheegay? waxay ahayd 180 waa idin dilayaa ahayd. mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto, laakiin waxay u badnayd in nala laynayo. arrintaas u badan baan soo gaari jiray. waxay ii sheegeen qolada gacanta igu haysay inay in badan ay raadinayeen daba socdeen, dad badanna inay isticmaaleen dhowr jeer, tiro badan ba iyagu dhaceen. mararka qaarkood meelo lagu soo sheegay inay tagtageen jalada hoteelada fariisan jirtay baan helay, maqaayadaas ka shaahi jirtay baan helay, waxaas oo kale way dheheen. mar waxay dhaheen ugu dambeyn xaafadda degantahay baan soo helay bay igu dheheen. kasoo meeshay dheheen xaafadaada waan ku soo aragnay aanan degenin. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu aaminsan yahay in sirdoonka Soomaaliya iyo hanaanka garsoorkuba ay shaqo ammaan leh qabteen si ay kiiskaasi uga salgaaraan. sirdoonku Soomaalidu saas way fariishireen khayr laaji. marka ficilkaas geystay watay
dhibaatada shirqoolkaas maxkamadda la saaray xukunka ku dhacay inahaas waxay ahayd runtii shaqo fiican ay qabteen oo lagu ammaani karaa. kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka soomaalida etoobiya. khadar cabdi ismaaciil waa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga shacbiga soomaalida etoobiya. in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka. xaqiiqatan xogtaas ma hayo, balse haddii ilaahay idhaaho hay-adaha ay khusayso ama goobaha ay khusayso intaan weydiiyo haddii ilaahay idhaaho wixii jawaaba waan ku siin karaa, laakiin xogtaas hadda aniga way igu cusub tahay. waaya haddii ay dhab noqoto maxaa tallaabood qaadi kartaan? kolleyto xaqiiqatan dee waxay u baahan tahay horta waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna ay jirto in la ogaado. marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ogi xogtaas oo ma hayo. tallaabadaasaan yaan ku eegaynaa ama tallaabadaasaan qaadaynaa, mid aan ku dhihi karo saacaddan hadda ma aha. maxaa haddaba caadiyan waajib ah ee saaran dawlad marka dawlad kale ay isku daydo inay falkaasi ka fuliso waddankeeda? ma jiraan qaynuuno caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka deggan? ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwo laba geesood ah oo lagu xadgudbay? su'aalahaasi waxaan hordhigay garyaqaan cabdulwaaxid cusmaan qalinleh oo ku nool gobolka minnesota ee dalkan maraykanka. waxaan anigu marka hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo anigu faahfaahintiisa. hadalkaygana ma aha hadal si gaara aan kiiskan ugaga hadlayo, laakiin si guud baan uga hadlayaa. markii faldambiyeed noocaas oo kaliya dhaco laba arrimood baa laga fiiriyaa. faldambiyeedkan qofkan ajanabiga geystay ma qof shaksi ahaan u geystayba oo shaksi ahaan isagu dembigan u galay, mise waxa ka dambeeya dawlad oo xaqiijin karaa inay dawladi ka dambayso. haddii qofku uu shaksi ahaan u galay inta badan dawladuhu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyobaa jira ama agreements. waxaa jira heshiisyo dhigaya in la isweydaarsado dadka eedeysanayaasha ah ee ay dawladuhu kala qabaan. heshiisyo dawladaha dhexdooda ay saxiixdaan baa jira. marka haddii faldambiyeedku shaksi yahay waa noocaas. haddii la ogaado inay dawladi ka dambeysay oo cadeymaheeda la helo, dawladuhu inta badan waxay xaq yihiin markaa inay dawladda faldambiyeedka laga dhex sameeyey dhexdeeda, sida soomaaliya oo kale masalan arrintan hadda aad sheegayso oo kale, in ay arrintaa ka mudaharaad diblomaasi ah ay samayso oo ay arrintaa dacwad iyo cabasho rasmiya dawladda kale u gudbiso. dawladu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in danjirayaasha ama ambaasadorada waddankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda. waxaa dhacda sidoo kale in dawladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobolada ka jira regionka africa oo kale ama united nationka ama maxkamadaha caalamiga ah, in dawladaha qaarkood ay si xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan. waxaa jira arrimo fara badan oo dawladuhu ay ku kacaan, laakiin waxaa la ogyahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weye. dawladuhuna inta badan waxay ku xaliyaan xaal mastuur, waana arrimo runtii dawladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldambiyeedyo laga fuliyo ee dhulkooda laga fuliyo. waa arrimo xasaasi ah oo dawladuhu aad iyo aad bay arrimahaasi uga diideen. maxaa haddaba dawladda soomaaliya ay ka qabatay caddaymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka etoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF? bil kadib markii uu dhacay xukunka cabdikariim makhtal maxamuud axmed, waxaa dawladda etoobiya ay sii daysay maxaabiist soomaali ah oo tiradoodu dhan tahay 114. haddaba sii daynta maxaabiistaas xiriir miyay la lahayd xukunka cabdikariim makhtal maxamuud? haddaba dawladda soomaaliya iyo waxay ka qabatay kiiskan waxaan wax ka weydiiyey wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawad. ninka iyo sharcigiisa iyo xiridiisa iyo maaragtay hadda maxkamad baa go-aankeeda loo go-aamisay. adiguna waa sheegtay xukunkii inuu dhacay, laakiin waxaan kuu sheegayaa maxaabiista la soo daayey inaysan xiriir la lahayn gorgortan kaleeto toona. etoobiya keliya maaha, maxaabiist waxaa laga soo celiyey maxaa la yihahdaa India, waxaa laga soo celiyey Ethiopia saa adiguba sheegtay. waxaa dad Soomaali oo ku dhiban
maxaa la yihahdaa laga soo celiyey Libya. Hadda waxaa socda hadda aynu isla hadlayno waxaa jira diblomaasiyiin Soomaaliya oo ku hawlan soo deynta maxaa la yihahdaa dad Soomaaliyeed oo ku xiran Oman, dad Soomaaliyeed oo ku xiran Iran, kuwa ku xiran xuduudaha maaragtay maxaa la yihahdaa Tanzania iyo Zambia. Marka safaaradaheena dadka jooga iyo diblomaasiyiinteena arrintaasay ku hawlan yihiin. marka wax cabasho ama protestia ama ood ka samayseen dhacdadaasi may jirta? Dhacdadee walaal? dhacdada ninka la xukumay sanadkii hore June 22keedii 2017 ninka haddaan kuu sheegayo lagu xukumay lagu helay inuu doonayay inuu dil ka geysto Muqdisho. haddii laga sameeyo cadashooyinka diblomaasiyadda ah waa kuwa ku ekaada janarada diblomaasiga ah garanay. laakiin sirdoonka Itoobiya kama hadhin kiiska raggaasi, waxaana la soo gaaray bishii August ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo dowladda Soomaaliya cadaadis ha uga yimaado dhinaca Itoobiya ama iyaduba iskeeda ha u go'aansatee ay dowladda Itoobiya ku wareejisay mid ka mid ah baanduulayaasha ururka ONLF Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo bilo yar ka hor ka badbaaday shirqoolka sirdoonka Itoobiya ay maleegeen. waraysiga khaaska ah ee Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax uu siiyey barnaamijkan galka baarista waxaa markii ugu horreysay uu si qoto dheer u faahfaahinayaa sidii ay u dhacday qabashadiisa iyo sidii loogu gudbiyey dowladda Itoobiya. habeenku waa Arbaco 23kii bishii August 2017 waa xilli fiid ah. ciidamo ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa galay hotel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo. ciidan baa yimid laabka ugu garaacan waan ka furay hawshadeedii qaabkaas ku bilaabatay. ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay u xireen qol madow. su'aalaha ay weydiiyeenna waa ay koobnaayeen. way ka hayeen meel ay deganayeen oo xabsi oo dadku xidhi jiray bay geeyeen. 3 habeen baan joogay Gaalkacyo. 3 habeen lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray? sargaalka ku soo qabtay ma taqaanaa? ma aqaano sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magacayga ahayna ma jirin. aba yaraatee magacayga baa la weydiiyey, magacaygana umaana sheegin, toos umaana sheegin. galabtii dambe habeenkii ay soo qabteen galabtii dambe inay ahayd baan u malaynayaa iyagoo magacayga sheegayaan banaanka ka maqlahay hadal haynta magacayga banaanka ka maqlahay, laakiin intii la iilay hebel ma tahay ma aynan ugu dhigin. Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa markiiba galay tuhun, waxaana u weheliyey walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo horey loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF, xubnahaasi oo ku dambeeyey xabsiyada Itoobiya. maalintii Jimcaha ee 26kii bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdikariim Qalbi Dhagax in garoonka la geynayo si diyaarad loo saaro. mar waa uu farxay sababtoo ah raggii isaga ka horreeyey laguma qaadi jirin diyaarad. ugu yaraantaasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaadhay madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay. haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula baydhi karto dhinaca Itoobiya. walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqadda diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho. walbahaara waan qabay wararmay diyaaraddu dhinac kale u jiiraysaa oo dhanka midig ay ka jiraysaa jigjiga kulaada. laakiin markaan arkay meeshaan ka soo caga dhiganayno badii bidhaanteedii markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhawaanay xamar waan farxay, aad baan u farxay. dhowrkii habeen waraacdii ahaana wuu iga ba'ay anigoo indhahaygu toos u arkay hayaan baan kasoo degay airportka oo garanahaya oo dadka qaarkii garanaya. baabuur baa lagu qaaday. waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. welina Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax looma sheegin cidda uu u xiran yahay iyo sababta loo haysto. waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay, waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay-adda nabad sugiddu. kabacdi xamara lagu keenay. xamar wax ma lagugu weydiiyey iyada? aniga qoladan xamar markii la ii keenay maalin jamcay ahayd, galabtii jamcuhu sii wareegayey. habeenkaas goor casarkiia jamcihii casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la igeeyey. waxaa la weydiiyey keliya Qalbi Dhagax ma lagu yidhahdaa magaca? maya baan ku yidhi. magacaaga sheeg baa layidhi. Cabdi Muuse la yidhahdaa baan ku yidhi. wixii kale ku daran wuxuu ahaa qolamaa tahay, yaad ka tahay caruurtaada magacyahood waxaas oo maaragtay iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kala. qabiilkaagay ku weydiiyeen?
mar walba su-aalaha igu soo noqonayo ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay marka runtii ma jeclaysaneyn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay maxaa yeelay dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laigu tuunsan yahay in la weydiiyaan filayay laakiin magacayga markastoo la weydiiyo waxa ku xigaa waxa weeye qolamaa tahay bay ahayd arrintaas aad bay runtii igu ahayd arrin iyo cuntami weyday oo aanan fahmin waan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi maaha iyo wax laisku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan marka inahaas inbay ahayd wixii la weydiinahay haba yaraatay wax kale oo markii ugu dambeysay inay ahayd baan umalaynaya yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaad tahay gudoomiye ku-xigeenka jabhadda owanalef maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa waxaan ku yidhi owanalefnimadu dembi maaha waxaa la soo gaadhay isniin 28 bishii Agost hiirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kallahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shakhsiga ahayd waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mida dareemayaashiisa gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroortii waxaa igu soo galay niman ciidankii meesha ilaalada ahaa kamid a waxay yidhahan sarwaalkaaga qaado kale sarwaalkaagii oo ii keeneen iga maqnaan shaarkaaga xidho wax iyabaan xidhay waxaan u qaatay in la ii geynayo meel maxkamad in la ii geynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan la ii diyaariyey inkastoo waa xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisyada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qayb kamida ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii laiga xidhay aad baan u shakiyey gacmaha markii laiga xidhay ama indhaha aan laiga xidhin baa banaanka imid banaanka markii aan imid baa taliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xidha markaasaa indhahana laiga xidhay xadhigii gacmaha laigu sii adkeeyey kii indhaha laigu adkeeyey baabuurka laigu qaaday baabuurkaa lagaga wareejiyey kontarollo way jiraan aan sii dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa laigu wareejiyey baabuurkii dambe laigu wareejiyey baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo oo ku hadlayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu waday ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna laiga saaray sidaasay horta xaaladeeda xamar aan kaga baxay ay ahayd Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sida isaga la ahayde muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinayay xuduudda Soomaaliya golay markay ka tagtay aniga oo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshani waa godaygii igu yidhi nin ciidanka Etoobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkoodii igula hadlay igu yidhi meeshani waa goday luqadooda aad umaana fahmaynin dhaga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan sii raacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshani waa goday yidhi anoo diyaaradda saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada ga tahay meesha aan taagnahay markaasaan arkay ciidii inay ciidii goday u eg tahay magaalada dhaanteeda meel ka arkay diyaaradii baa laiga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmaha sidii uga xidan laysoo dhex mariyey airboortka aan ku dhex lugeynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dabaqoodhiga iyo waxyaaba meelaha tuulan baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii de meesha joogay Etoobiyaanka ahaa dad un dhammaantii un qolyahaas un ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid ma jirin dad shacaabaha iyo wax hadda ii muuqday maamulada iyo ciidamadooda un bay iska ahaayeen markaas meel bay ay deganayeen bay igeeyeen sawirray damcaynan iga qaadqaadaan oo dhinac baan uga jeedsada waan diidanaa inay sawir iga qaadaan wejigayaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaga kay boodhaadhiyeen iska aflagaadiinahayeen laakiin waxaas oo dhan wax hadda macna way samaynahayeen maaha wejigayga un baan diidanaa inay ay soo hor istaagaan isagoo toosa inay sawir iga qaataan baan diidanaa inahaas kadib haddana waa un la caraabiyey xilli aan umalayn 5 galabnimo haddana biri dhaba laga dejiyey meel xun oo xabsiyada yaa habeenkii maqribkii markay ahayd yaa lagu kaxeeyey meel aada runtii u fool xun oo aada u dhib badan oo aan qofna ku jiri karin saaxado badan bay ahayd laakiin qofkii sidaydoo kale danta ku qasataa uu iskaga jirahayey kama bixi karin halkaasay maalintii dambena yaan igu hayeen waa laiga qaaday galabtii dambe xilli aan umalaynahay inay 5:00 galabnimo ay qiyaasta tahay yaa taaba meel u dhowoon safrada la yidhaahdo airport ciidamadu ay leeyihiin yaan ka degay iga dejiyeen
qola halkaad nagu sugaysa aan u tagnay oo sirdoonka dalka ah baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey katiinada hore iga xanayd intii layga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladuna hayseen baa laygu bedelay sidaasa waxaa lagu geeyey meel yar oo xabsi ah marka taasuna halkaasay martay. intaasi kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaanbaxay waxaa dhiibistaasi ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanaya waxay ku qasbeen in 6dii bishii sebteembar golaha wasiirada soomaaliya ay markii ugu horraysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhex martay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo etoobiya intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay cabdikariim muuse qalbidhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan al-shabaab eedaha dowladda iyo la xiriirinta al-shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONLF hadalka dowladdu ma dejin xiisaddii taagnayd 13 bishii sebteembar 2017 baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baadha sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay cabdikariim muuse qalbidhagax waxaana la siiyey muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan taasi oo dib u dhac uu ku yimid ugu dambayntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19 Novembar 2017 waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi cabdikariim muuse qalbidhagax ay ahayd sharci darro waxay kaloo sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixiso ah 28 bishii Juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda Itoobiya cabdikariim muuse qalbidhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii waxaana lagu sii daayey cafiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed isbedelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda Itoobiya dowladda Itoobiya ayaa intii Abiy Ahmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo 2 urur oo kale 28 bishii aynu soo dhaafnay ee Juulaay waxaa Eritrea booqasho ku tegey madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaasi kula kulmay gudoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan oo kulankaasi kadib idaacadda VOA u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambayn raaligelin ka bixiyey dhiibistii cabdikariim muuse qalbidhagax inkastoo dowladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin aad iyo mahadsan yahay Haruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baarista inoo soo diyaariyay isla markaana la socodsiinaya halkaad ka dhegeysanaysaana waa VOA